horta waqtiga maanta la joogo in dad la duqeeyo la garaaco la qaxiyo maxaan ku iraahday isbitaaladii la dumiyo waa arrin aad iyo aad runtii looga naxaway kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena Dulmar maanta waxa martin uga ah senator Cabdiqani Ugaasgeele oo kamid ah senatorada aqalka sare ee dalka Soomaaliya Cabdiqani sidoo kale wuxuu ahaa gudoomiyihii doorashooyinka madaxweynenimada ee Soomaaliya madaxtooyada ee sanadkii 2022 magacaygu xaashi gudoomiye ku soo dhawow mudane senator barnaamijka horfadhi media ee Dulmar ugu horreyn waxaan jeclahay ku weydiiyo shaqadii waxaad bilowdeen baarlamaanka 11aad ayaa bilowdeen aqalka sare ka tirsan tahay ilaa hadda aqalkiina sare maxaa uu qabsoomay waa mahadsan tahay xaashi waa kaaga mahadcelinayaa soo dhaweyntaada iyo waraysigaagaba waa dhowahay markaan u gudbo shaqada baarlamaanka gaar ahaan midda aqalka sare labada aqal way isku xiran yihiin sideedana waxay ka shaqeeyaan waa shuruucda inta badan markii sharcigu uu ka yimaado wasaaradda golaha wasiirada golaha shacabku soo maraa markaas ayuu aqalka sare ku soo dhamaadaa ilaa haddana ilaa 4 xeer ayaa labada gole oo baarlamaanku ka kooban yahay iyo golaha wasiiradu waa ansixiyeen shaqada dawladuna iminka aad bay si wanaagsan bay u socotaa oo aad u hagaagsan xeerarkaas maxaa ugu muhiimsanaad doonaysaa xeerarkaas waxaa ka mid ahaa kuwa runtii muhiim u ah ee deyn cafinta Soomaaliya iyo amniga labaduba way ku jireen waxaa ka mid ahaa xeerka cunaqabataynta maaliyadeed ee cayiman oo deyn cafinta iyo ilaalinta xuquuqda dadka iyo maalkoodaba ka warramayay ama lagu dhaqayay sidoo kale xeerka hay'adda nabad sugidda qaranka ayaa ka mid ahaa labada xeerba muhiim bay u ahaayeen dalka Soomaaliya iyo dawladaba xeerka tusaale ahaan nabad sugidda kale xogaa mudane xildhibaan waa laga yar qayliyay oo dad badan baa waxay ka bixiyeen in awood xad dhaaf la siiyay hay'addii oo dadka ku dhibaateey karaan baaritaano sameey karaan mararka qaarkood arrintaas si idila muuqatay idinka ka qalahan waa mahadsan tahay adeer horta wax walba oo jira lama oran karo wada saxay waa wada khaldan yihiin lama oran karo xeerka dad bini aadan qoray ma ahayn aayad quraan oo munazalo soo degay waa laga yaabaa in wax ka khaldan yihiin ama wax ka saxan yihiin laakiin anagu kulli aragtida aan ka qabnay waxaan islahayn 90% kii loo baahnaa ayuu ahaa waa tahay marka laga reebo xeerkaas iyo xeerarka kale aad ansixiseen waxaa jiray waxyaalo kale oo xogaa la rabay in ayagana wax laga qabto ama la dedejiyo bariyahan waxaa soo baxaysay xog kale oo iyadana ku saabsaneed in qaar ka mid ah xildhibaanada ama se dawladda hadda joogta ay dareynayso wado muddo kordhin sanadkii koowaad oo waxyaaro ugub ah noqon kara marka dadku ay si u fasirayaan waayo sanadkii koowaad arrinta maxaa kala socotaa waa mahadsan tahay horta waxaan u qoslayaa dee qof walba markii la yahay waxba lagu kordhinaya waxaa laga yaabaa in dadku u qaataan inay iska wada jecel yihiin oo maanta dawladda wax loo kordhinaya haddii la yahay qof kastoo ka tirsan ama xildhibaan ha ahaado ama wasiir ha ahaado inuu jecel yahay in wax loogu daro laakiin arrintaas maqal bay igu tahay si officialna uma soo bixin arrintaasi markii ay soo baxdo ama ay banaanka timaado ayaan wax ka oran karaa laakiin hadda arrintaas waxa weeye waddankeena waa ka maqnahay ma joogo laakiin wax si sax ah u soo baxay wali ma jiraan waa tahay waxaan rabaa mawduucin barnaamijka qaybta ugu muhiimsan aan rabay maanta ku xushay waxa weeye adigu waxaad ahayd gudoomiyihii doorashooyinka madaxweynenimada Soomaaliya xilli adag oo runtii ay aad iyo aad sakal badan ugu jirtay inay doorasho qabsoonto inay hufnaan noqoto iyo inay baalka noqoto waxaan rabaa qaybtan inaan marka horeysa ku bilaabo bal taariikh nololeedkaaga adiga taariikhdayda si kooban baan uga warramaya waqtigoo maaragtay ciriiri awgiis aniga magacayga saad sheegtay Cabdiqani Ugaas baa la yidhaahdaa nin Soomaaliyaan ahay muddo fara badan waddanka ayaan joogay dawladahaas maamul goboleedyada ama dawlad goboleedyada dhinaca Puntland baan muddo xilal badan ka soo qabtay dhowr wasiir baan soo maray dawladda isku xigay ilaa hadda aan soo gaaray maxaan ku iraahdaa senatarka aqalka sare inta kalena hadda dalka waa joogay dibaddana waa joogay waana shaqaynayay arrimaha bulshada iyo adeegyada dadku u baahan yihiin iyo waxa dadka wax u taraya oo maan mashquul ku ahaa inta badan haatanna wali adeegii dadweynaha ayaan hayaa waay
inaad noqoto gudoomiyihii guddiga doorashooyinka ee madaxweynenimada Soomaaliya xilligii aad arkaysay marxaladdu sii ahayd Muqdisho xaaladdu sii kacsaneed khilaafkii bahsanayd doorashada hareeyay intaynan u galin waxaad qabatay maxay macno adiga ku sameeyay markii horeba runtii arrin waxay ahayd aad iyo aad u adag iyadoo oo aad og tahay sanad iyo xoogaa in la isjiidiyay oo dawladda waqtigeedii dhammaaday oo dagaal la dhaceen oo qoryo la isu gurtay oo hawl aad u dhib badan bay ahayd waxaan is leeyahay awood anigu aan leeyahay iyo karti aan leeyahay kuma imaan horta ilaahay rabitaankiisa ogolaanshihiisa ku timid Soomaalida waxay tahay libax niman aqoon baa lax karita runtii khibradda aan dadka dheeraa iyo aqoon aan dheeraa ma ahayn laakiin dadaal badan baan ku bixiyay in arintaas wixii aan ka qaban karo aan ka qabto oo ilaahayna waa igu garab galay waxayna ii sameeyay macno weyn iyada oo Soomaaliya ay ku jirtay waqtigaas aad og tahay dhibta faraha badan haddana muddo kooban oo 15 beri waliba waxay ahayd 12 beri markaan ku dhawaaqaynay 4 beri baa naga tagtay waqtiga dad badan baa ila soo hadlay idaacada ay wareystay si u suurtoobaysaa yiraahdo waxaa suurtagal ah inaysan soo waqti ma laha dhakayd ah oo si haddii waqtigu ka dhamaado aad ugu darsatid kuma darin uma kaydsan ma ku iri sababtoo waxa weeye waxa ii muuqanaysay xildhibaanadii inay joogaan dadkii musharaxiinta wax doonayay inay joogaan meeshii wax lagu qaban lahaa inay diyaar tahay agabkii loo baahnaa inuu diyaar yahay nabadgelyada ciidan fiican oo ku filan baa joogay waxay iigu muuqanaysay inay qabsoomi karayso waxaan kaloo arkayay haddii waqtiga xoogaa aan dib u jiido oo aan isiraahdo xoogaa ayaama madaxweyne ahaatid anigu qudhayo waxaan arkayay wixii dhacay wax ka badan inay dhici karaan sidaa daraadeed aan arintaas xoogga u saarayay in waqtiga loogu talagalay ku qabsoonto ma haddana ilaahay baa iskala dhammaanteed waayahay markay timaado waxaad bilowdeen process maartay aad iyo aad u adkaa oo runtii wajiye badan lahaa waxaa ugu yar adkaa waxyaalaha ugu adkaa 1 iyo 2 barbilowgiiba marka waqtiga laga reebo waxyaalihii kale sida shahaado bixintii arrimihii kale yani saad wax u maamuleysay gudiyadii gudi hoosaadka samaysay haltaa dib ugu noqon guddigu wuxuu ka koobnaa 17 xubnood buu ka koobnaa labada gol ka kala yimid 11 xubnood waxay ka timid golaha shacabka dhinaca kalena intaasoo kale wax ku dhow 6 meelahaas ka timid 17 kaas ahayn 3 guddi baan u qaybinay guddiga diiwaangelinta registrationka ama diiwaangelinta waxa la yiraahdo guddi buu ahaa guddiga wacyigelinta iyo xiriirkuna guddi buu ahaa guddiga farsamada iyo diyaarinta goobta wax lagu qabanayana guddi buu ahaa 3 guddi bay u kala koobnaayeen 3 waxa weeye subaxii 9 baan shaqada galaynay waxaan ka baxaynay markay gaadho adigu 5 galabnimo markaan subaxii bilaabaynayna waa fariisan jiray oo waxaan qabanaynaa ka balami jiray markaan rawaxaynana wixii noo qabsoomay baan control jiray oo anagoo aan wixii maanta noo qabsoomay aanan eegin ma aan kala ruux jirin runtii shaqo aad u adag bay ahayd waxaana laakiin caqabadaha iigu daraa waxay ahaayeen oo aan wax ka baranay labadii doorasho oo hor ka horeeyay guddoonka tii aqalka sare iyo tii golaha shacabka waxaan ka faa'iidnay baa jiro aan ka baranay marka qofku raba inuu tanaasulo oo qof kale u tanaasulayo oo kale waxbaan ka baranay 10 ka qaadanay baan isticmaalay telefoonada oo aan la diriireynay musuqmaasuqa oo xogta aan ku haynay in lacag la isugu gudbin karo waxaan kaloo la diriireynay in lacag lala soo galo meesha si aysan u dhicin meesha dhexdeeda in lagu gorgortamo oo musuq looga ilaasho dadkuna waqti bay haysteen haddii 10 beri markii lagu dhawaaqay ninkii ololeynaya ama lacag la baxaya waqti fiican buu haystay inaan meeshaasi aysan ciriiri dareemin labada aqal oo hore markii la dooranayay xoogaa ciriir badan baa la dareemay waxaas wixii aan ka baranay ayaan ku dhisnay intooda badan laakiin arinta marka soo noqono tanaad sheegtay ah salaam gorgorta meesha ka dhicin laakiin gorgorta wali waa dhacay baa la yiri oo waxa la yiri markii doorashadii adkaatay wareeggeedii isku batay dadkii mid kale ninkii ugu la filayay inuu ugu horeeyo uusan ugu horeeyay nin kale oo Siciidani ugu horeeyay waxaas waxa markii doonadana awaatii la kulmay kulamo badan ma dhacay taas hortaa kala weydii anagu horta kuma aanan mashquulsanayn laba qof oo wada istaagaya iyo laba wax isweydiisanaya meeshana hadda ololaa ka socdo waa la isxaaday waa la iskukaansanay
laakiin annaga hadafka iyagu wuxuu ahaa inaan meeshaas musuqmaasuq wax u eego lacag la kala gadanaya inaysan soo gelin haddaan anigu hadda adiga kula istaaweerada waxaasaan kaa rabaa kama rabtid lama hadli kartid hadalka iyagu ma ahayn ama bannaanka ha ku soo ballamin ama gudaha ha ku ballamin laakiin inuusan dhicin wax meesha wax lagu kala gadanaya ama musuq ah inuusan dhicin baan saaran kaash lacag lagu bixinayo dadku xilliga fursadda marka la tirinayo kala codadka chance baa jira la isku shukaansan karo oo ninkii wax doonaya cid raba u yeeran karo lama hor istaagi karo taas sax ma ololaa ka socday meesha gudaheeda waa run laakiin annaga wixii na khuseeyey doorashadaasi inay si cadaalada ku dhacdo sida annaga nala ahay waqtigeedina ay ku dhacdo 15 May baan u qabanay 11 habeenimay dhamaatay iyadoo habeenkii waqtigeeda hal saac uu ka dhimay bay noo dhamaatay iyaduna waxay ahayd fadli ilaahay guul ilaahay nasiibay ahayd ilaahay waa mahadnaq waxaan is leeyahay waxba naga khaldami karaan laakiin dadaalka iyagu intii ugu dambeysay baan gaarsiinay waaye tan marka loo soo noqdo markii adiga kulamaad yeelanaysay mar walba waxa ku imaanayay musharaxiin ma jireen wax kulama oo ka baxsan inaad shahaado bixisaan oo kulama adiga dadku soo approach garay ku yimid oo wax ku weydiistay ama kaala hadlay xagga natiijada wax ka bedesho ama culays ama handadaad ama lacag taabal ku noqon aniga maadaama aan gudoomiyaha guddiga ahaa aniga iyo inta ila shaqeynaysa waxa mamnuuc ka ahayd wax ka baxsan shaqada naloo igmaday inaan qabanno waa ka ballanay qof aniga ii soo bareeray oo oranaya waxaan ka rabaa inaad waxa isiisid ama waxa ii samaysidna ma jirin aniguna ma yeelan sababtu waxa weeye waxa la ii doortay 20 milyan oo Soomaaliya masiirkooda la ii gacanta la ii geli marka ma dhici karin inaan qof aan jecelahay kula gorgortamo mid aan nabcahay ku riixo waa laga yaabaa qof qalbigeenu qof ka jecel yahay inuu guuleysto laakiin shaqada meesha ka socota waxay ii baraysay mid aan aqoon iyo mid aan aqaanaba inaan daacad u ahaado oo dhexdhexaad u ahaado sidaas aan ku shaqeynayay cidda hadda aniga ii timid waxay weydiisanaysaa waxay igala hadlisay cabasho ku saabsan xagga doorashada sida wax loo qabanayo ama maaragtay waxaan u baahanahay dadka codka ii tiriya ama waxaan u baahanahay inaan la soo galo laba qof oo aniga staafkayga ama maaragtay xogaynteeda dad saas waxa igala hadlayay way jiraan oo cabashada aynkaas keenayay laakiin qof aniga shakhsiyan inaan wax u leexiyo igu yimid ma jirto haba yaraatee markay noqoto dhinaca dad tusaale ahaan ma jira cadaadis kugu saaray oo ku yiri hebel yaa shahaado la siin ama ha laga dhigo qof aan u qalmin disqualification oo kale ha la siiyo arrintaas marnaba cid kula soo qaaday maya ma jirin haddii hadda uu yiraahdo yaa hebel la shahaado la siin kama yeereen waxa ku jiray dadka 39 qof baa shahaado qaatay waxa ku jiray nin dhalinyaro ah oo runtii anigu hadda ma garanayo aniga waji ahaan markaan arko aad buu ila daayara markii la ii keenay dokumentigiisa wajigiisa waa isu kay dabooli waayeen baasaboorkiisa baan dalbaday waa la ii keenay waxa ugu qoray inuu 40 jiro baasaboorka aniga xukuma marka baasaboorkiisa markaan arkay oo dokumentiga dawlad baa siisay waxaan ku khasbanaaday inaan shahaadada siiyo waxaa jira rag soo weydiiyay oo yiri wiilkaas ma qaan gaarin ma gaarin xilliga uu isku sharxi lahaa waxaan ku yiri dawladii dokumentiga siisay ayaa su'aashaas inay ka jawaabto iskale anigu markuu hadal ma geli karo anigu markuu xuquuq u leeyahay markuu dhashayna ma ogeyn dokumentiga uu taaran xukumaya idinka idin ma aqaan marka dhalateen way lacag badan baa dadka ku xukunteen oo tiraahdeen $40,000 ha bixiyo musharax maxaad culays kan tahay leegu saarteen iyo arintaas annaga gudi ahaan ma aanan go'aamin labada aqal oo la isu geeyay oo labada lixda gudoonka ay fadhiyaan baa meesha lagu go'aamiyay gacantaana loo taagay labada aqal oo jamac ah ayaa arintaa go'aamiyay gacantana u taagay annaga siday noogu timid in lacagta la qaado uma noogu timid gudiga iyo go'aanka ma u lahayn runtiina waxaan u arkayay in looga jeedo dad badan oo haatan madaxweyne isu sharxi lahaa inay iska daayaan oo aan si sax ah u socon wixii laakiin ila yaabadnaa waxay ahayd dadku meel ka keenay baa garan waayay lacagta dad aan isleeyahay ma heli karaan muuqaal ahaan baa lacagtii bixiyay wax la codana ma heli waaye lacagtii halka ku dambeysay lacagtaas horta waxay ahayd lacag dawladeed bay ahayd anagu akoon dawladeed baan ku shubnay ka bacdina wasaaradda maaliyadda lagu wareejiyay sidaasay annaga nagu dhaaftay idinku ma maamulay maya ma aanan maamulin kamana aanan shaqayn ra'iisul wasaarihii markaa joogay wasiirkii maaliyadda ayaa akoonka waxa lagu wareejiyay wasaaradda maaliyadda wax aan ka maamulay xukuumaddii markaas lacagta la wareegtay xukuumadda la wareegtay wixii kulli markaa deyn ahaa oo annagu aan galay kharash baan gelaynay maalmaha hadal jeedinta oo kale annaga bixinaynay
meesha diyaarinteeda kharashkeeda anaga bixinay dawladdan u gudbiyay dawladdan bixisay waayahay marka lacagtaasi kolley waxaa ka timid beelay ku dumaysa hadda ilaa hadda lama garanayo idinkuna kolley marka adigu door kumaad lahayn lacagta hadhow la soo celiyo oo ama la isticmaalo ama doorkiina goormu dhamaanayay maya annaga doorka iyagu sida saxda horta oo ama loo horay loogu maamulayay labadii doorasho ka horreeyay oo dhacay waxaan xogta ku hayaa guddigu inay maamulayeen lacagtaas waa saas laakiin anigu ma maamulin guddigayguna ma maamulin waxaan ilaahay ugu mahadinayaa inaysan iga soo gaarin meel ay ku dambaysayna anigu hanti dhowrihiina maahi sax xisaabihii dawladdana maahi dabagalla kuma samayn sababtoo tahay labadaa shaqo midna ma saxeexaaga maxaa ku baxay marka haba yaraatee senti kuma bixin oo lacagaad adigu ma wax lacago aan saxay oo saxiixay ku baxay ma jiro haba yaraatee la heli mayo waaya waxaa runtii mudnaan gaara leh in lagugu ammaanay labadii doorasho saddex doorasho dalka ka dhacay marka oo laba isku nooc yihiin oo aqalka sare iyo aqalka hoose iyo tii madaxtooyada taad way ka duwaneed baa la yidhaahdaa runtii maaragtay dee nin aad u da'weyn hadda ma tihid nin weyn waa tahay laakiin dee nin aad u da'weyn oo la odhan karo dee tusaale ahaan otherwise ninkii kale ee maamulayay doorashadaas wuu kaa da'weynaa oo kaa khibrad badnaa laakiin way yani taadu way ka dhalin yareen wax kastaba ha noqotee adigu maxaad og tahay oo adigu sidee arrintaas adigu isku bambaanisay doorashadaadina u noqotay mid aad iyo aad loogu hirto oo qof walba jeclaaday yow markii horena waa idhi arrintaas karti anigu aan leeyahay iyo raganimo aan leeyahay oo dheeriya iyo aqoon zaa'idoo aan dadka doorashooyinka qabanayay ka badinayay ma jirto xaqiiqdii waxay ahayd bifadlillaah ilaahay ogolaanshihiisa iyo ridihiisa ay ahayd anigu keliya waxaan lahaa dadaalka iyo daacadnimada intaas unbaa marka daacadnimada kale ereygaas waxay sameynaysaa taas macno weyn sameynaysaa waa tahay hadeerto doorashadii way dhacday runtii wax kasta waxa dhaceen si wanaagsan baa xilka la isku wareejiyay markii xilka la isku wareejiyay doorashadii la dhacday saacadihii ka dhamaadeen madaxweyne cusub waddanka loo dhaariyay maxaa dareentay dareenkaaga bal maalintaas dib iyo rugu cid runtii guul iyo farxad waxa ii ahaa wixii la ii dhiibay oo culayska badan igu hayay oo aanan 10 bari u seexan in ilaahay nagu guuleeyay farxad weyn bay ii ahayd waxaan dareemayay culays aan 16 qof oo kala dareemay sababtoo ay tahay meeshaas hadday wax ka xumaadaan cidda qaadanaysa anay ahay aad baan ugu rabi baryay ilaahay inuu nagu guuleeyay markii ilaahay nagu guuleeyay waa ku farxay waxaan kaloo ku farxay waxaa laga yaabaa in siyaabo kale haddii haatan wax u soo bixi lahaayeen dalku dagaal baan ka baqayay inuu dhaco ama waxuun kale isbedelaan iyadiina deganaansho ayaa muuqatay isla markiiba isbedelkii baad ku farxday meesha ka dhacay isbedelka macnaha in nabad la helay Soomaaliya ay madaxweyne heshay yani maaha inaan madaxweyne tagay jeclaa iyo mid jooga inaan nabcaa midna maaha laakiin isbedel inuu yimid oo nabad cagaha lala helay farxad weyn bay ahayd runtii oo Soomaaliya si xalaal ah doorashadu si xalaal u dhacday waxaana soo baxay qofkii ilaahay u qadaray baa soo baxay ugu dambeyn su'aasha ugu dambaysa haddii ilaahay nafteena daayo doorashada dambe ma laga yaabo marka la aad gudoomiye doorasho noqoto ma isku sharaxi lahay khibradaas iyo arrintaas ama haddii lagu weydiiyo lagu yiraahdo qabo maya aragtida aan hadda ka qabo markii horena waxay ahayd libaaxnimaan aqoon baa lax ka rita aqoon haddaan ogahay sida inay ushida badan tahay waxaan waa ka joogi lahaa wax igu kalifayeen ma jirin xil jacaylna igama ahayn wax igu kalifayeen ma jirin laakiin wax ilaahay qoray bay ahayd hadda haddii la yiraahdo doorasho dhacaysa gudoomiye ka noqon xaqiiqdii xataa guddiga gelinayo way ma rajaynaysaa doorasho tan ka wanaagsan Soomaaliya ka dhacdo tiyaad qabateen oo kale iska daba wareegahay wax kasta baa dhici karaan oo lama oran karo fafaalaheeda anigu hadda waxaan isleeyahay intii hadda doorashooyin Soomaaliya ka soo dhacayay markii laga baxay ku meel gaarka intii dambaba iyo intii ka horeysayba waan joogay dalka waan arkayay waxayna ahayd tii ugu dhib badnayd waxaan isleeyahay waxay ahayd tii ugu hufnayd marka laga reebo habka xildhibaanada u soo baxeen sidoo waxaan kala rabaa inaan ku weydiiyo marxaladda maanta ugu weyn ee Soomaaliya dhex taal ama arrinta ka jirta waa arrinta ka taagan gobolada SSC gaar ahaan gobolka Sool Laascaanood iyo agagaarkeeda dagaal baa ka dhacay dad badan baa ku dhintay adiguna de mas'uuliyiinta dalkaad ka mid tahay arrintaas maxaad ka waraysaa seesa u aragtay wax socda niyo arrinta meesha ka dhacday waa arrin qof aqli leh ama damiir leh uusan ogolaan karin waxaan kaloo ogolaan karin gaaliya islaam wixii meesha ka dhacay
cidina ma aqbali karto runtiina waxaan isleeyahay musiibo weyn bay ahayd ma dhici karto waqtiga maanta la joogo in dad la duqeeyo la garaaco la qaxiyo maxaan ku idhaahdaay isbitaaladii la dumiyo waa arrin aad iyo aad runtii looga naxaweeyey qofkii hadda ku fakeray inuu waxaa sameeyena waxaa la odhan karaa waa qof aan ku jirin oo xag allana hadda ka xisaabtamay adduunna aan rajo ka qabin baa la odhan karaa qofka waxaa sameeyey arrintaasi waa arrin runtii musiibo weyn oo dhacday waxyaabo aad iyo aad aan ula yaabanahay waxaa ka mid ah waa la yaqaanaa Soomaaliya 19 bay burburay waa la kala guurguuray dadkii ama colaade ha kala rabo ama nin walba gurigiisa ha aaday deegaankaas hadda dad baa loo yaqaanaa oo dhulkaas Soomaaliland oo Britishka soo Ingiriisku u gumaysan jiray dad reer waqooyi ah degan oo Soomaali isku jirta maamul baa ka samaysmay waqti hore laakiin haddana waa qabaa'ilo qabiil walbana meel buu degan yahay waxaan filayaa inaysan suurtoobi karin nin reer SSC ihi maanta inuu inta ku duulo burco uu yiraahdo waa duqeynaya anigu uma garaabeen lagamana yeeleen ka inaguna kuma yeeleen runtii tabcan kuma waafaqeen runtii xaqiiqdii sida aan ka uga yeeleen baana kana uga yeeleen waa ay khalad weyn ugu muuqata la diriri jiray dadku islaynayay kuwa isku qabiil ah islaynayay laakiin waxaan meesha ku jirin isbitaal baa la gubayaa guriyihii baa la gubayaa caruurtii baa la barakicinayaa kuwii xanuunsanaa oo macaanka lahaa iyo kuwii dhiikarka lahaa baa bannaanka hurda waa wax qof ku farxi karaa ma jiro weli haddeeraa haddana durbaan loo sii tumayaa waxaa la leeyahay arrintaas waa in maaragtay gacanta lagu soo celiyaa arrin sax maaha yaa qaadaya mas-uuliyadda waxaa qaadaya way iska caddahay caalamkaa sheegay islaam baa sheegay qaramada midoobay iyo maaragtay qolada nabadgelyada u qaabilsan oo security councilka la yiraahdo fadhiyadoodii bay ku soo baxeen cidda mas-uuliyadda qaadaysaa way caddahay maamulka cidda madaxda ka aba qaadaysa reer loogu abtirin mayo dhinac walba waa joogaan maamulkaas hadda ka shaqaynaya waqooyi ayaa qaadaya aniga aragtidaan ka qabo arrinta marka dhanka kale loo eego senator waxaa jira go'aamo odayaashii dhaqankii dadka deegaanku ay soo saareen go'aamadaas waxay u ekaayeen in ay xal dhexdhexaada ay la yimaadeen oo ka madax bannaan Puntland oo iyaduna dhinac ka sheeganaysay iyo Somaliland oo iyaduna meesha xog ku maamulayay aragtida marka adiga ka mas'uul Soomaaliyeed ahaan xildhibaanna waa tahay dabcan in kastoo gobolkaas aad ka soo jeedin laakiin haddana si kale mas'uul Soomaaliyeed baa tahay sidee bay kula tahay mas'uulka dawladdu ay qaadatay runtii roolkii dawladdu ay lahayd boqolkiiba boqol bay qaadatay ma oranayo intaynu ognahay haddii dawladdu roolkeeda qaadato maanta maba timaadeenba Itoobiya inay dhexdhexaadin gasho way dawladda roolka iska lahayd dawlad Soomaaliyeed baa jirta oo raas casayr ilaa raas Kamooni ilaa loo yacdo mas'uulka ah caalamku ku og yahay madaxweyne la doortay baarlamaan baa u joogay prime minister ayagay ahayd inay qaataan roolka hadda maanta ay wadamada dariska ahi ay qaadanayaan runtii waxaan isleeyahay marka laga reebo cambaaraynta iyo u gudbinta qaramada midoobay iyo hadallada xoogaa hiilka isaga eg Soomaalinimada loogu hiilinayo marka laga tago waxaan isleeyahay wax badan baa ka dhimanaa oo ay qaban kareen inay qabtaan waxaan kaloo meesha ku jirin si cad oo bareer ah marna looma ambaarayn loomana ceebayn cidda falkaa samaynaysa oo afka laga dhowray mar walba waxaa la lahaa hal la heshiiyo maaragtay halaysu turo hadal iska maaragtay xoogaa qabow mana dhici karto in ay hadda qoladaas waxay lagu laynayaa saan isleeyahay maamulkii Somaliland bay rabaan inay ka go'aan waxaa jirtay mar madaxweynuhu uu masaajid ka hadlayay oo uu yiri hadda Somaliland waxay yiraahdaan anagu waa go'nay annaga ma awoodi karno nagamana suurtoobi karto inaan inta gantaala u rakibano ku garaacno hadalka ay yiraahdeen darteed yani sax ma aha inay iyaguna laascano maanta gantaala ku garaacaan hadalku saas uu dhacay mararkaas oo kale way muuqanaysay sida uu uga xun yahay ama dawladda uga xun tahay dad calankii Soomaaliya si maanta in la laayo calanka lagu laayo oo dawladdii aysan heel weyn u muujin runtii xoogaa waxaa ku jiray dhaliil baa ku jirtay balse inta ay qabteen waa ku ammaaneen yihiin waana ku mahadsan yihiin waana dareemayaa inay ku habboonaan lahayd in inta ay ka sii badiyaan موضوعaas su'aasha ugu dambaysa ka baxna waxa weeye
Ethiopia inay maanta dhex orado oo kanaalkii uu dib Soomaaliya ugu furmo sida dad badan aaminsan yihiin ayadoo dawladda Soomaaliyeed joogto aqalkii sare joogo baarlamaan la jiro golo wasiir ay jiraan Soomaali kale wax garad oo yaal dhaqameed wax walba ay joogaan oo runtii intaas way ku qanci kareysay in Soomaaliya ciidankeeda iyo duqeynta ka disay magaalada kana baxdo deegaanka sidee ayay kula dhamaysaa siyaasadda Soomaaliya ma dib u socod miyaan la oran karin in Ethiopia mar kale faragelinta la exmas runtii hadda Ethiopia inay soo farageliso duruufta meesha taagan baaba ogolaanaysa waxa kaliya oo haatan u furan inay soo faragelisana waa waxa ay samaysay oo raallida laga noqday waxaan raalli looga noqday haddii roolkii dawladdu meesha uu ka maqan yahay intiisa badnayd oo ama ciidamo ay kala dhex dhigta ha ahaato ama cadaadis kale ha ku saadho ha ahaato haddii uu xogaa gaabis yahay oo sidii la maleynayay uusan noqon Ethiopia inay soo gasho way ku khasban tahay haddii kale waxaa dhacaya in gurmad xaggana ka yimaado ka bacdana qabiil la isugu hoobto awal maamulada laga hadlayay Soomaaliland iyo halkaas hebel baa la sheegay in qabiil isu bedesho marka in dib loo noqdo laga baqaya haddii marka Ethiopia xal keenayso baaba la soo dhaweynayaa oo meel kale hadda loo carramaba arkaba anu macna Ethiopia saameynaysa madaba qabiilkii deegaan saameynaysa qabiilkii waa kulli gudaha jiraan laba reer cid kasta gudaha jirta marka way saameynaysaa ayaga laftigooda maslaxadooda ku jirta inay iska moosaan shidadaas aad iyo aad baad mahadsan tahay waa senator Cabdi Qani Ugaas geelle gudoomiyihii guddiga doorashooyinka madaxweynaha Soomaaliya barnaamijka dhul mar u warramayay aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga 100%